marka hore waxaan salaamayaa nabadoonnada ogaasada muxuu ahaay ganacsatada muxuu ahaay aqoon-yahamiinta ururka dhalinyarada dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdu salaan meesha waxaan iskugu nimid hambalyo madaxweynaha cusub ee la doortay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan leenahay hambalyo madaxweyne cusub ee Soomaali ku degto dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba u shaqeeya Allah ka dhigaan leenahay soo dhawow Soomaaliya waa ogtahay oo wax badan ay madaxweyne badan la sameeyo la eedeynay adigu hadda shacabkaada dad iska daadanin si wanaagsan ay ku jecel yihiin meel aan laga mudaharaadin malaha soo dhawow madaxweyne cusub Allah ka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi yaasha dhaqanka aqoonyahanka dhammaan ka soo qayb galaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waa hambalyo waa soo dhaweyn waxaan u hambalyeynaa madaxweynaha cusub ee la doortay maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ku soo dhawow hambalyada ku soo dhawow waxaa ku taageeray dhaqankii reer Hiiraan dhammaan waxgaradka reer Hiiraan ilaa habeen hore markii lagu doortay intaa waa taagneed waa lagu doortay annagana waa ku soo dhaweynaynaa haddana hambalyadaas aan u taaganahay intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo baarlamaankii Soomaaliyeed ee sharafta badan sameeyay ee cadaaladda sameeyay ayagana waxaan rabaa inaan u mahadceliyo aad baad u mahadsantihiin cadaaladda iyo isbeddelka iyo wanaaggaad ku u heliseen ayagana waa salaamaya madaxweynaha mar labaad baan ku noqonayaa madaxweynow waxaan kaa codsanaynaa oon ku faraynaa cadaaladda inaad ka shaqayso ummadda Soomaaliyeed u sinto cadaaladda ilaahay idinkiis ra'iisul wasaaraha aad soo xuli doonto golaha wasiirada la soo xuli doono kuwa daacada oo diinta iyo dadka wax tiro oo isbeddel sameeyo ayagana intaasaan kaa codsanaa mar labaad iyo mar saddexaad dad badan ay sugaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi keenaan ku mahadinaynaa ilaahayga subxaanahu wa tacaala ahaa oo xalayna baryisay ayaan ku mahadnaqaynaa tan kale labayso gudoomiyaha madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo si sharaf leh oo wanaag leh ayaa loo doortay haddii aan reer Hiiraan aan nahayna waxaan alla ka rajaynaynaa in aas ilaahay wax la qabto allana tuso hiiraanka xaqarana inuu ilaahay tuso ayaan ilaahay ka baryaynaa ummadda hiiraan ama ummadda ku nool waxay aad ugu faraxsan tahay madaxweynaha oo si sharaftana loo doortay oo musuq la'aan soo bannaan baxay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inaan ummadda si cadaalad ah isku hogaamiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waasiyada odayaasha dhaqanka culumaa diinka aqoon-yahanada ururka dhalinyarada ururka haweenka bahda saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacdu salaan mar raba inaan hadal badiyo hambalyadii waxaan la qabaa nimankii iga horreeyey madaxweynaha cusub waxaan ka codsanayaa Hiiraan wuxuu joogaa 60kii ma firaarin Soomaalidu waxay tiraa madaxweynayaasha dalka Soomaaliya soo maamula aadan Cabdulle Cismaan ugu horreeyay Hiiraan oo ka dhashay kana hadda ugu dambeeyna Xasan Sheekh oo ahaa hal taako oo intaas la eg madaxweyne u qabta gobolka Hiiraan kuma jiro gobolada qaybsamay Hiiraan waxa laga dhigay madhaliis ilaahay baa mahadaas leh Hiiraan waa istiraatiiji dad nool oo akhyaare oo culummo leh oo ugaasiye leh oo aqoon-yahano leh ayaa ka soo baxa weligeedna ka soo bixi jiray haddana waxaan jecelnahay inaan ka soo baxo wax naga halaabayna ma jiraan laakiin qolo walba waxay noo gashay waan ogaanay waxaan rabnaa marka madaxweynaha cusub waxaan ku soo dhaweynaynaa sida akhyaartii iga horreysaba ay tiri marka koobaad safarka ugu horreeya haddii ilaahay nabad geliyo booqashada ugu horreysa inuu gobolka Hiiraan yimaado talabaad waxaan ka codsanaynaa Soomaaliya waxay ku dhamaatay reer hebel haddaan xibinta la siin waxba ka socomayeen waxaas waa laga soo gudbay sidaan aan arag ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliya inuu siiyo Hiiraan abaal marin ugu dhigo gobolka Hiiraan noo ballaarin
lixdii gobol oo ka mid ahay sideedii gobol oo ka mid ahay 18 oo ka mid ahay maanta halkiisii uu taagan yahay waxaas waa cadaalad darro madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ka codsanaynaa hiiraan ilmidig iyo ilbidix inuu ku fiiriyo xubinta koobaad oo ra'iisul wasaarahana uu siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahaygi iskugu keenay macsharkan aan ku kulansannahay annaga maanta reer hiiraan haddii aan nahay suurigeliyey inaan si farxad iyo nabadgelyo aan ku damaashaadno kuna taageerno madaxweynaha cusub mahad ilaahaygaasaa iska leh waxaan rabaa inaan halkan salaan ugu gudbiyo ogaasyada culamaa udiinka aqoon-yahana ummadda Soomaaliyeed ilaahaygi subxaanahu wa ta'aala ahaa ee iyada abuurtay ayaa weli u ah ninka iyada doonto ma dooran karteen ninkii alla subxaanahu wa ta'aala u doortay ayaa khayr u ah waxaan qabnaa ama aan aad u rajaynaynaa mudane madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya sida nabadoonka igu horreeyay uu carabka ugu dhuftay reer hiiraan waxaan ka rajaynaynaa wixii hiiraan u ahay inuu wax ka bedelo hiiraan 8 madaxweyne oo asiga ka horeysay dushay u jeediyeen runta markii la sheegay asiga inuusan sagaal ku noqonin oo hiiraan il raxmad la ku eego xaqiraada iyo ihaanada hiiraan uu ku jirana uu ka saaray intaasaan horta aan markii ugu horeysay asiga aan leenahay mudane madaxweyne ku soo dhawow ummadda Soomaaliyeed meel joogtaba dal iyo dibad waxay ku damaashaaday farxad xugun rabbi oo yimid ummadana ay ku faraxsan tahay waxaan leenahay mudane madaxweyne xilkaada Allah ku fududee waxaan ku ballan qaadaynaa inaan hari habeen ku garab istaaganahay si daacad iyo dar Allah inaan kula shaqaynayn ummadda Soomaaliyeed ee mas'uulka u qabatay mas'uulka aad u tahay xil adag aad haysaa xilkaada Allah ku fududeeyo annagana waa ku garab istaaganahay gogosha ugu horeyso ee safarkaadana beledweyne ay ka furan tahay gobolka Hiiraan martiqaadka aaga qabo inaad noo imaado marxaladda aan ku noolnahay barwaaqada ee aad nagala soo qayb gashaan ka codsanaynaa inaad ajiibi doontana waa filaynaa waa la iga dambeeya dad badan iga dambeeya nin hadal badine soo ma koobin nin ma aragtay yareyne kama tagin axbaabta iga dambeeysa ayaan inta dambe u hambeynaa hadalkayga intaas uu leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi odayaashii idiga horeysay aad ku hadashay waxaan harta la qabaa salaantii hore cid kasta qaymaha ay leedahay oo ku fadhida meesha oo bulshada qaybaheeda kala duwan oo u horeeyo ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble ayaan horta qof walba maqaamku ku fadhiyaan ku salaam salaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bacdi salaam war badan aniga ma ku daraayo waxaan horta u mahad celinayaa ilaahay weynaa ee subxaanahu wa ta'aala ayaan u mahad celinaynaa mahad ka gartaan layna waxaa kaloo mahadda labaad mudan baarlamaanka Soomaaliya oo loo dhaariyay in ay Soomaaliya cadaalad ku maamulaan loo dhaariyana mahadda labaad aan u mahad celinayaa waxaan qabnaa sidii loo dhaariyay xaqoodii ay u guteen ma qabnaa horta saasaan qabnaa cid ay soo doorteen Soomaaliya oo dhan waa cid ay raalli ka wada tahay waxa soo haray madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo Soomaaliya oo dhan raalli ay ka tahay marka hadda raalli ay ka tahay waxaan kugula ballamaynaa kugula dardaarmaynaa hadal nin hore u yiri waxaan rabaa inaan gol dhigo waxaan kugula ballamaynaa ra'iisul wasaare sidaas oo kale loo soo xulo in baarlamaankuna ansixiyo adiguna aad la timaado hadalkayga intaasaan ku leeyahay dad badan dhahaya intaasaan kugula ballamo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wamaalin Soomaaliya oo dhan ay muujisay shucuurtooda rabitaankooda waxaan u hambalyeeynaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi farmaajo shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogo waxay muujiyeen inay maanta Soomaaliya xornimo ay qaadatay taas waxay ku tusaysaa maanta Soomaaliya inay qabiil ka gudbeen
taas waxay ku tusaysaa maanta in loo baahan yahay isbeddelkaasoo ah mid amni mid dhaqaale mid cadaalad iyo mid midnimo Soomaaliyeed ah ummadda reer Hiiraan ee ka mid ah gobollada ugu waaweyn Soomaaliya waxay caddaynayaan in maanta madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed 8 bishii Febraayo loo doortay inuu xilka qabto inuu isku keeni doono ummadda Soomaaliyeed dhamaanteed inuu faqrigu dhamaan doono nabadgelyada darradu inay dhamaan doonaan taasna waxa looga baahan yahay inuu madaxweynuhu arrintaas oo xaqiijiyo maanta rabitaanku wuxuu gaarsiisan yahay 98% iyo wax ka badan waxaan rajaynaynaa iyadoo sidaas lagu jecel yahay waqtigu inuu ka dhamaan doono taasna waxay ku xiran tahay inaad fahamtid waxa kale oo caddaynaya in qabiilkii laga gudbay maanta Soomaaliya qabiil waa ka dhamaaday Soomaaliya hogaamin bay u baahan tahay Soomaaliya kuma aqoon waxay ku baratay 6 bilood xukunka ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed qabatay taas ayaa muujisay in maanta ay dib ku doortaan xildhibaanada ummadda Soomaaliyeed oo u mahad celinaynaa sida siyaasiyiinta iga horeysay iyo dhaqankii iga horeeyay oo codsaday anoo rajaynaya maalmaha soo socda madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed inuu gobolka Hiiraan caasimadiisa Beledweyne inuu ku soo aadan yahay reer Hiiraanna taas bay caddeeyeen reer Hiiraan taas u diyaar garoobeen waxaan ku rajaynaynaa madaxweynihii koobaad dhowr iyo 30 sano ama 40 sano Soomaaliya isku keenay ku hogaamiyay wadada cadaaladda iyo horumarka iyo sinaanta kaas baan ku rajaynaynaa Soomaaliya ha noolaato odayaasha dhaqanka dhalinyarada aqoon-yahanada culimada diinka dhammaan martida halkan ka soo qayb gashay dhamaantood waa salaamaya runtii madaxweyne waxaan hambaliyada aan u diraynaa mar walba maanta ku saddex maalin walba aan wadayna waxa waaye taageerada aan u qabno madaxweynaha cusub ee Soomaaliya runtii madaxweyne qabiil laguma dooran maanta waxa laga yaabaa qabiilkaada annaga 100 jeer ka jecel taas meeshii ku dhamaatay dadkan adaa hoggaan fiican iyo qabyaaladii adaa ka sii baabiin karo adaana ku celin karo runtii rajo fiican aan la helay aan weli maaragtay soo marin annaga aan arkin dadka waxay sheegaan inay tahay 60kii camal maanta in la joogo runtii 60kii la joogaa maalinta xornimada la qaatay waxa ku sugaya dadaal dheer qofsaas loo sugayo oo karaamadaas Ilaahay siiyay jaceelkaas dadka dhan ku abuuray ana tahay marka waxa la rabaa inaad ka faa'iidaysatid reer Hiiraan way ku celceliyeen taageerada ay ku qabaan runtii annaan ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan waxaan ku biirinaynaa annagana in aad maaragtay safarkaad ugu horeeyay Beledweyne imaado aad soo booqato shacabweynaha reer Hiiraan soo booqato ugaaskeena soo booqato dhammaan maaragtay si maaragtay marxaba inta ka weyn aan kugu sii sameeyo waxaan leenahay ku soo dhawo Beledweyne waa meesha xadaarada Soomaaliya ka bilaabatay waa meesha xornimada Soomaaliya ka bilaabatay waa meesha aan ku rajaynayo insha Allah inaad markuu ugu horeysa ay maado annagana mar walba heeli waa ku garab taaganahay madaxweynaha tahay istoosi waqti adag lagu jiraa xilli xun lagu jiraa qof kasta oo wanaagsan xataa uu yeelanayo mucaarad laakiin wanaag mar walba badi ka fiirso maaragtay ninka ra'iisul wasaare u dooranaysa ku dadaal maaragtay dadka maaragtay mar walba aad keenaysid inay noqdaan dad fiican oo wanaagsan oo sidaadoo kale assalaamu calaykum salaamaya dadweynaha sharafta halkan isugu yimiday oo uu horeeyo ugaaskeena sharafta leh ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble odayaasha waaweyn ganacsatada aqoon-yahanka saraakiisha generaalada dhammaantiin waa salaamantihiin marka xigo waxaan halkan ugu hambaliyaynayaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliyeed ee aad loo jecel yahay ee aad loo taageeray ee aad loo dabaaldegay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mudane madaxweyne halkan waa laga jecel yahay Soomaaliya waa ku jeceshahay jaanas ayaad haystaa Soomaaliya mar labaad ay ku midowdo aad baanan ku salaamaynaa kula shaqaynaynaa ku soo dhawaynaynaa gobolkan aad dadka badan ee hodanka ah ee ballaaran ee taariikhda leh dadkoodu waxay diyaar yihiin inay kula shaqeeyaan sidaas la eg siday odayaasha u dhawaajiyeen gobolka Hiiraan wuxuu xaq u leeyahay markani in uu ra'iisul wasaare qabto si Soomaaliya marka lacageeda ugu istaagto waan ku salaamaynaa waan soo qurba joogta Hiiraan kuwa gudaha intaba 100% way ku taageersan yihiin wayna kula shaqeynayaan insha Allah guul baan ku rajaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh intaas markaa ka gudbo madaxweynaha
waxaan la socodsiinaynaa ama uu indhihiisa ku arkay Soomaali in israacdo shicibkii waa israacay shicibkii hadduu israacay maxaa dhinac yaalla waa baasha riyunuugta la yidhaah ama masacagaleyd qofba siduu u yaqaano wakhtiga roobabawda waa soo degtaayoo dhulka cagaarkay daaqda jiilaalkana geedahay fuushaa maxay geedaha u fuushaa waa waxay u fuushaa ama ay iska dhaadhicisay cooskii afkii aan ku daaqay coos freesha coos qallalan kuma daaqayo madaxweynaha waxaanu la socodsiinaynaa macallimiintii inay hadda jiifaan wayna soo kici doonaan ilaahay ha kuu fududay alle hawl yarna inaysan ku sugayn la soco mudana madaxweyne intaasaan kugula dardaarmaynaa dadkanu dadkii aad ogeed ma aha waa isbeddel badanaa jiro meeririq badanaa jirto wax badanaa laysku dayaa in lagu jallaafeeyo oon mid ahayn oon laba ahayn oo saddexayn rukubo badan inay kuu yaalliin laamiga oon ogow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu